kusoo dhowaada Maine Public News Connect, wararkii toddobaadlaha oo idinka imanaya idaacadda dadweynaha Maine oo ku baxaya afafka Isbaanishka, Faransiiska, Bortugiiska, Soomaaliga iyo af Ingiriiska. Bismillaahi raxmaani raxiim. Dacwado ku saabsan jinsiyadda xafiiska socdaalka ee Maine, dacwad lagaga soo horjeeda helitaanka xogta khasaanada dowladda Maraykanka iyo mudaharaadyo ka dhana madaxweyne Trump. Kala wanaagsan daawadayaal, maanta waa maalin Jimcaha bisha Febraayo 14 waxaan halkan idinku soo gudbinaynaa qodobadii wararka ugu muhiimsanaa toddobaadkan uu idinla socodsiin anigoo ah Maxamed Xasan. Haatanna kusoo dhowaada wararkii oo faahfaahsan. Dacwado ku saabsan jinsiyadda. Garsoore heer federaal oo ku sugan gobolka New Hampshire ayaa maanta hor istaagay amarkii fulinta ahaa ee madaxweyne Trump, kaasoo looga gol lahaa in lagu joojiyo ama lagu soo afjaro xaq u lahaanshaha jinsiyadda ee qof kastoo ku dhasha waddanka Maraykanka. Intaasoo ahayd mabda'a dastuuri ah oo soo jireen ahaa in qof kasta oo ku dhashay Maraykanka uu si toos u yahay muwaadin marka laga reebo dhowr arrimood oo kooban. Ururka xorriyadda madaniga ah ee gobolka Maine ayaa ka mid ah in ka badan 10 urur oo iyaguna gobollo kale ah oo iyagu dacwad markaas xareeyey ay kaga soo horjeedaan dowladda federaalka inay u diiddo dhalashada carruurta muhaajiriinta ah qaarkood, oo ay ku jiraan kuwa iyagu aan sharciga dalka ku joogin iyo kuwa ku jooga fiisaha wakhtiga gaaban. Laba garsoore oo kale oo federaal ayaa horey iyaguna si ku meel gaara u hakiyey amarka dowladda federaalka iyaguna ka jawaabayay dacwado ka yimid gobollo kale. Xafiis cusub oo dadka soo galootiga ah, iyadoo ay jirto qalalaashaha ka dhashay isbeddelka degdega ah ee siyaasadda socdaalka ee federaalka ku saabsan, ayaa uu xafiiska cusub ee gobolka Maine waxa uu diiradda saari doonaa fursadaha dhaqaale ee bulshooyinka soo galootiga ah. Xafiiska cusub ee Maine ee dadka soo galootiga ayaa diiradda wuxuu saari doonaa horumarinta xirfadaha, fasalada af Ingiriisiga iyo isku xirka muhaajiriinta iyo dadka loo shaqeeyo ee gobolka. Agaasimaha xafiiska Tarlan Axmedov ayaa waxa uu sheegay in walow ay jirto walwal badan oo ka dhashay siyaasadda socdaalka ee madaxweyne Trump, uu isagu weli ku dadaalayo in Maine uu ka dhigo gobol soo dhoweyn badan leh. Gudoomiyaha gobolka Janet Mills ayaa xafiiskan abuurtay sanadkii hore iyadoo ku biirtay 20 gobol oo kale oo horey u lahaa xafiiskan oo kale ah. Dacwado ku saabsan xogta wasaaradda khasaanada ama dakhliga. Xiriiryaha guud ee gobolka Maine Aaron Frey ayaa maanta wuxuu ku biiray 10 gobol oo kale oo 10 xeer ilaaliye oo gobollo kale ah oo iyagu sheegay inay xarayn doonaan dacwad si ay uga horjoogsadaan Elon Musk inuu helo habka lacag bixinta ee xasaasiga ee khasaanada Maraykanka. Musk oo isagu ah bilyaneer iskale shirkadda baabuurta korontada ku shaqeeya Tesla iyo baraha bulshada ee X, ayaa $100 milyan wuxuu ku kharash gareeyey doorashadii madaxweyne ee Trump. Qareennada guud ayaa waxay sheegeen in Musk iyo waaxdan cusub ee antidhowrka dowladdu ay hadda heli karaan macluumaad gaara oo dadka Maraykanka ay leeyihiin, iyaga oo ku tilmaamay arrintaasi mid sharci darro ah oo aan horey loo arag oo aan la aqbali karin. Garsoore federaal ah ayaa ansixiyey heshiis meel gaar ah oo lagu xadidayo wadaagga xogta khasaanada xasaasiga ah, iyadoo cabashooyin kale oo sharciina ay weli soo socdaan. Mudaharaadyo lagaga soo horjeedo madaxweyne Trump. Boqolaal mudaharadayaal ah ayaa waxay ku soo biireen soo bax ka dhacay bartamaha magaalada Portland toddobaadkii hore oo looga soo horjeeday dadaalka maamulka Trump uu doonayay inuu ku baabi'iyo hay'ado federaali ah. Qaar badan oo ka mid ah dadka ka qaybgalayaasha ayaa waxay dhaleeceeyeen joojinta deeqaha iyo deymaha dowladda federaalka, halka qaar kalena ay ka hadleen muhiimadda ay leedahay ilaalinta hababka dimuqraadiga ee federaalku. Abaabulaha isu soo baxaas Michael Levin ayaa wuxuu sheegay inuu bilaabay abaabulkan isu soo baxa kadib markii ay hakinta maalgelinta federaalku ay halis gelisay xirfadiisa ama habkiisa beeraha ee cuntada dabiiciga ah. Dibadbaxan ma ahayn mid ay maalgeliyeen kooxo, waxaana lagu soo abaabulay barta Facebooka. Dadkii ka hadlay xafladda ayaa waxay dhiirigeliyeen
in kasoo qaybgalayaashu ay sii wadaan mudaharaadyada waxayna ugu baaqeen senator Susan Collins iyo in ay iyadu diido xubnaha golaha wasiirada ee Donald Trump ee aan weli loo codayn. Odayaal halkaad nagala socoteen waa Main Public News Connect. Intaas iyo sarag dambe waa mahadsantiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan u mahadcelinaynaa saaxiibadayada bulshada ee naga caawiyey soo saarista barnaamijkan. Main Public News Connect waxaa suurageliyey bankiga Seaport Credit Union, dukaanka Hannaford Supermarkets, IDEX, fiiska guryeynta ee Maine, Coastal Enterprises, Cover Maine, ururka Sam L. Cohen, Ku iyo Patricia Ewan, ururka Maine Health Access, iyo xafiiska adeega bulshada ee Maine. Main Public News Connect waxaa suurageliyey Patricia Ewan oo ku howlan soo dhoweynta bulshooyinka iyo dhaqamada kala duwan. Seaport Credit Union waxaa ka go'an daryeelka dhaqaale ee dadka reer Maine oo ay ka shaqaynayeen tan iyo 1931. Waxay xarumo ku leeyihiin Augusta, Scarborough, Portland, waxayna dhowaan furi doonaan mid ku taal Lewiston. seaportcu.org. suuqa Hannaford wuxuu u dabaaldegayaa shaqaalahooda iyo macaamiishooda oo ah dad kala duwan iyo dhammaan bulshooyinka. waxaa suuqa ka go'an inay abuuraan goob soo dhoweyn si wada jir ahna waa meel ka sii weyn suuq. si aad wax badan u ogaato booqo hannaford.com. haddii aanu nahay Maine Housing waxaan ognahay in lahaanshaha gurigu uu yahay furaha. barnaamijka qofka ugu horreeyay qoyska ee Maine waa barnaamij fursad u siinaya inay guri helaan dadkii horay aan guri qoyskooda u yeelan. waa suurtagal inaad guri yeelato. faahfaahin dheeraada kala soco mainhousing.org. haddii lagaa gooyey caymiska caafimaadka ama noloshaada uu ku yimid isbeddel weyn, waxaad heli kartaa kaalmaad iskaga bixiso caymiska caafimaadka adigoo booqanaya coverme.gov. waxyaalo badan ayaa iska beddelay MaineCare. ka warhay si aad caymiskaaga u ilaashato oo warbixintaadii ugu dambaysay ku qor mainconnection.gov.